caanimada dhibaatooyinkeeda ka mid tahay habeenkii oo dhan baan saamaliilaa aan soo jeedaa ninkan nagu shaqaystaa شو نسر كلنا وها وبوسني ملاك يمدو بستولد يحبوتي ninkii baan mindi xun oo aan baradhada ku jarjarin jiray baan kula soo qabaamay shuuku waa hubaysan yahay jarjartiisa ana u soo socdo mubisooladii galoo riimido meeshii baan ka dhici gaaray hadda jacalka si isku tiiyay si isku soo martay meelaha qurbahaana qofka haduu dhowr jeer gacan qaado ما عربت بالغ نفتح كعنت دم بلا بندي فيوس لا لا إلا الحلم والله فيوس وقالوا لي فيوس كان بالغ ساري بس تم كعنتي بس كسي حما أنت بدنا اللي يردوا إنه يملان هيكون يغف مريكان يكنا ذا شوجا هذا الكون أنا قابو بهم بندها نقلته في ذوق كلته إنها أنت تسوق قلته سكتور ماشى سكتور كرته ما حارب إنتان مقدشة تبعتي على إدمو إن شرعي سوء إسبوني سيستو أدرهم في سجوها مع قاته تفهم كان صوت سلامه xogaa wax isku soo yaro dubarido ila meesha dhaqankeeda iyo qaabka looga shaqeeyo waxbaan qanay kadibna aan soo noqdo laakiin inaan dego oo caadi ugu noolaado diyaar u miyahay halkan ku haystaa inta kale tababar baan hadda ku jira tababarkii ma dhamaysanin oo jawaab dhamaystiran ma bixin karo laakiin baasha faa'iidada badan laakiin waxa laga yaabaa inay god kugu rido Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan ku soo dhawaada Saqadi Media iyo sidoo kale Saqadi Media waxaa halkan inala jooga oo Martino ah oo maanta aan waqti wada qaadan doona Sadiq Faarax Haybe tobilaha ugu qaalisan ugu caansan magaalada Jigjiga Sadiq soo ma santa walaal waan salaamayaa Saqadi beejkeeda iyo daawadayaasheeda ويعني وك سلامنا أيوة مرة بدن وقت كسر موقتي بيجكية ما شاء الله دتكنا وح وناكسن مو يعني أفحون كاشيء ما لكن ما توح الله مرة دي المقالة دي سر أكشن كبحنيني وح يسور تجشر ربنا يبصمي إن أنا السهر فريسانو شيء كوين كي يكون كلام كسي قصل بدن با أهل كنا كم كشان ويا وحنا قد قلنا شيء كوين كين هرجيساتي وانا لشوفته ما شاء الله صديقه هذا كور هرجيساتي مش شيء كوين كذا ما دام على صعد شيء كوين كذا تحسين وقتي بهي تحنا وقتي بيتاع والواحد نوغ شيكيسا kala duwanaanshaha u dhaxeeya maanta iyo markaas waa maasantahay munay horta muuqaalada aan ugu dheed waan daawadaa oo kuwaan ku jira xataa adoo falanqeynaya waan daawadaa marka sharaf bay tahay in muuqaal live maanta aan isku aragno intaas kadib Hargeysa waxaan maleynayaa laba jeer hore baan imid mid doobigaan soo adeegahay midna qaraabo salaam baan u imid marka runtii way kala duwan tahay xilliguna uu kala duwan yahay anigoo sidii hore ka yar duwan oo Hargeysa la iga garanayo yaan doorka nimid marka waxaan leeyahay Hargeysa waxay ku fiican tahay qof ay garanayso inuu yimaado qof aan garanayo kuma soo baxayso ma soo dhaweyso waday xaalada kugu dhacay marjidka laga celiyay oo daraad soo dhaaftay oo inta sheekadaada ku jirtay waayahay Sadiqo hadda sidii hore way ka duwan tahay oo qof Hargeysa qof ay garanaysaa tahay waliba aad ay u garanayso waliba qof ay xishmaynayso bal caanimada markay noqoto waxaan maqlay adigu dhibaatooyin badan oo way leedahay faa'iidana way leedahay markay caan ay noqoto qofka ay dadku ku bartaan faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda markaas barbar dhigto tii badan baad islaam wallahi waxa badan hadii uu qofku isagu ismaareeyo faa'iidadeeda badan fursado badan baad helaysaa waxaad la kulmi kartaa dad siyaasiyiin oo hadda ka hor aad la kulmi karin wadartay dadka caanka madaxda iyo ra'iisul wasaarayaasha iyo meel walba ay la kulmi karaan dadka ugu caansan baad la kulmaysaa oo maanta badee waan kula kulmay hadaan hada caan ahayn maana kula kulmay si fiican waxa kale la kulmaysaa dad fara badan oo kala duwan oo ganacsato ah oo dadkii fursadaha laga helay waxa laga yaabaa adigu dhaado inaad ganacsade halka ka noqoto farta kula dhuuqdo marka hadii aad fahamto bahasha oo aad fursadaha iyaga ka qaadato caanimadaadii kalena aad iska wadato faa'iido weey hadii si aad iyadii ku shaqeyso oo intaas kugu xiranay inta aan wixii social media ka soo gala oo ku waxayso laba dhibaato way yeelanaysaa mid waa mid oo bulsho fara badan oo kugu xiran bay noqonaysaa inaad qanciso oo mar walba inaad wax duubis iyo walaad iyo kan u jawaab iyo kan telefoon ka qabo hawl baad galaysaa xagga kalena waxaad ka mashquulaysaa adoomo Ilaahay baan nahay wixii markii hore lagu abuuray adduunka lagu keenay waa inaad Ilaahay caabudo yaad ka mashquulaysaa waxaad kaloo ka mashquulaysaa dadkii mas'uulka aad ka ahayd reerkaaga oo kaleeto carruurtaada oo kaleeto inaad la ciyaarto kaaga baahan ilaan bariis la isma siiye dadkii ehelkaaga ahaa waxaad noqonaysaa qof bad ku jira badweyn oo xawd meesha ku hayo kan muxuu yiri kan maxay tiri kan suwaalkaaga muxuu ka yiri kan koofiyada xaga u leexib ku leeyahay dadkeenuna maartay baasha waa lagu wada jira dad walwaalan ba xataa ku jira marka hadaad damacdo inaad waxa xoog saarto waad ku wareeraysaa marka anu kale tababar baan hadda ku jira tababarkii ma dhamaysanin oo jawaab dhamaystiran ma bixin karo laakiin baasha faa'iidada badan laakiin waxa laga yaabaa inay god kugu rido
haddii aad israaciso marka waa inaad ilaahay tala saarato dadkuna inta badan talooyinkooda waxa weeyaan ku soco si fiican baad wadaa ku keep going hore u soco hore u socday waxa laga yaabaa godweyn inuu ka horeeyo ma garatay marka anigu hadda koor baan ka hadlo waxaan idhi war hore u socday ka daayo hore iska fiiri dhaha warna wallahi hore iska fiiri marka qaadkood midig u leexadhaha marka qaadkood bidix u leexadhaha marka qaadkood war waad luntay soo noqodhaha baasha naga amaad marka waxaad leedahay dadkeenu dadka Soomaalidu say ku leeyihiin waan kula soconaa waan ku wadanaa hore u soco baa laga yaabaa meel cidla aad taagan inaad soo aragto صح marka hala taxadaro social media una faa'iidooyin badan buu leeyahay laakiin wax walba cilmi bay leeyihiin cilmigiisa waa in la barto waya keep going taasan ayaan ku haystaya nin baa jiray dhaxaasa aad caan u noqday hal habeen caan ku noqday waxa shalay arkayay iyadoo caruurtiisa loo baahaynayo oo ay leedahay dhagacaanimadii way nooga dartay caruurtaydii waxaan siiyo ma hayo maanta isagiina dalin caan weeyaan meelo badan oo galgali jiray luuqi badan oo mari jiray ma mari karo dadkii wax leeyahay waa hebel caanimada horta haddii aan sida wanaagsan looga faa'iideysan dibkeeda leedahay god baan ku guradayaan Soomaalidu been ma keep going taas waa god ku dhacweeyaan waya هذا توبر ما تكون شفتها يوم هذون بدي حوالها طبعا صائف بحد ما شاء الله شيكوين كذا مركز شيكين يصير وحلوت شيكوين كور عشان مركز رنتا أيتها qofku runta u sheegayo isla weyn iyo qabna aan ku jirin waxa ku oran karaa waxyaalaha ugu wanaagsan ay dadku sheekooyinkaaga u xiiseynayaan runta ay yahay iyo inaad marnaba shaqadaada iyo hawlahaaga aanad ka faanaynin way dhankii doobigii jigjigiin ugu yala صدقوا مدام أيمك أد نقطة قف اللي يقانو فرصة بدنا وكلا هلاي دوبي ما هالكيس وين وهاني مسح ما كبدرنا دوبي وشقيا dhalinyaro maartay gala shaqeeya markaan xaga joogana shaqadiisa waan ka qayb galaa markaan halkan joogana korka uma ka kontroolaa doobigu wuu soconayaa hatta haddaan madaxweyne noqdo wuu soconayaa waa asalkii lagama abaaldhacayo doobiguna waa shaqo sharaf leh sideedaba ninka doobiga ka shaqeeya iyo ka madaxweynaha iyo ka wasiirka iyo ka maqaaxida u furan tahay qof waliba lacag buu helayaa lacagtaydu doobi kuma qorna markaan dukaamada wax kaga gadanayo marka dadku inay intaa fahmaan ba fiicnaan lahayd waana shaqadooda ka kibrin shaqo waa shaqo qaar badan ba laakiin marka xogaa yar isla helaan ilaa wahalkii ay ka soo bilaabeen may anigu shaqooyin badan baan soo qabtay waan ku sheegay oo shaqadeedii ugu horeysay waxay ahayd maqal baan raacay ari baan soo gudbay bursaliidka wuu jiray bursaliidkii ugu horeeyay ninka biyoolihii iga amaaday wada xabo shaqooyinkaygu way badnaayeen wax aanan isku dayin uu yar yahay nin baa maalin wuxuu lahaa nin wax walba oo isku dayday sidii nin Afrikada bari laga sheegay Afrikada galbeed inaad hadda xabsi furato oo dad dambiilayaasha halay keeno xabsigan idinka kareene baa ku dhiman marka xawayaan dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay ka cabsanin shaqooyinka waxaan waa la isku dayaa mar walbana waa faa'iido inay ku guuleysato oo faa'iido ka hesho iyo inaad waaya aragnimo ka hesho bari kama la cabsanin labada mid bay noqon okay way hada waxaan ku sugeynaa sheeko qosolade anigii daawadayaashayda oo sadiiq halkan u soo fariisiyay oo waxa weeyaan in badan sheekooyinkiisa aan soo wada dhageysanay haye wallahi horta anigu inaan dadka ka qosliyay isma haysto la wada ka qoslisan dadku iyagu ba Soomaalidu munay midaan ku sheego adduunka kale waxa lagu qoslaa waxyaabaha raaxada laakiin Soomaalidu way ka duwan tahay dhibaatooyinka ku qoslaan nin aanu maleynayo inuu reer Soomaaliland yahay oo jilaa oo la yiraahdo Yuusuf Halawaasho laakiin Imaaraadka Carabta degan yaa hadda ka hor la weydiiyay waa ninka ku jiray riwaayadii qoto doqonka masalay yaas oo ku garanay si fiican ninkaas sidii carabtana uu ka qosliyaa Soomaalida uu ka qosliyaa waxa la yiri maxay ku kala duwan yihiin carabtu wuxuu yiri marka hore waa dad iska ladan qosolkoodu boqolkiiba 50 diyaar busiye marka taas iska dhahdo isku qosliba Soomaalidu laakiin waa dad dhibaatada ku qosla halkan aan ka baxay god baan galay xabsi baa liiga galiyay waa liigu kaacay hadii la mid baa ilkaaga marka hadda lahaa nin baa sanka igu dhuftay oo sida sniperkii hadana meeshii iga celiyay ninka waraysanaya inuu ooyay ahayd adigu inaad ooyday ahayd waa qoslaysaa ma garatay marka dadku waa dad dhibaatadaydu ku qoslaanba anu iyagaan la yaabanahay iyaguna anay igu qoslayaan qaabkaad uga sheekeynaysid ee qosolka keenaya dadka qaar baa bixinta ama sheekada way ku kala xariibsan dadku inay sheekada waxaad arkaysaa qof sheeko aad u wanaagsan hayo oo haddana markuu kaaga sheekeynayo oo aad arkayso ku caajisayso sheekadiisa qofna mid kooban buu kaaga dhigayaa wax kale marka qosolka waxa keenaya qaabkaad uga sheekeynaysid mid kale jirtay oo ina bal toog ciyaar jirtay qosol yar ugu noqo waxay ahayd waaga Facebook ma jirin marka Yurub markaan tagay oo aan iska ladanahay laakiin sharcigu iga maqan yahay ya waxaan bilaabay baltoga qolal baa la geli jiray inaan xasuusto maada soo gaarin baan maray waad yareed adigu marka qolal baa la isticmaali jiray qolalkaas marka lagu sheekaysan jiray marka nin Bosnian baa iga hooseeyay
marka anu habeenkii oo dhan joogigii baa iga qasmay oo caanimada dhibaatooyinkeeda ka mid tahay habeenkii oo dhan baan saamaliilaa aan soo jeedaa ninkan nagu shaqaystaa shoonisar kaalana uu ahaa oo Bosnia meelaha ka yimid oo bistoolad iyo waxba watay ninkii baan mindi xun oo aan baradhada ku jarjarin jiray baan kula soo qamaamay shoogu waa hubaysan yahay jarjartiisa ana u soo socdo mu bistoolada galoo yimid meesha baan ka dhici gaaray naxdin weligay ma ogtahay hub lama soo qaadan mustaqbal fara badan iyo sharci inaan helay iyo waliba marka aroos baan ahaa waxaan la saamaleeyay garan maaye aroos waa marka shaqada xaqiiqada markaa ma kula joogtay way joogtay habeenkii hore aniga fadhiyo oo balaayada ku jira waxaan waa balwad weey hadaad dhafarka iyo social media waxaan aad ku badato waad ku wareeraysaa marka shaqadaasi shaqo naxdin badan bay ahayd ninaan qaraabanahay markii dambe kala xaliyo igu yiri adaa khaldan adaa maalintii habeen u bedelay caadiga ay ku soo noqo waayo dadkan habeenkii dhan bay wadaan maalinkiina wax sabaan baa sidii ilaahay ugu talagalay weey wajacalna layla libaasa wajacalna nahara ma'a waa kooka hargeysa quraanka waa laga bartaa baan malayn oo kooka soo garan marka waxa weeye shaqada shaqo cajiib bay ahayd waxaa jirtay hal sheekan kaaga sheekeynaya oo xaqiiqa Soomaalidu inta badan waxay ku wanaagsan tahay munay inay kali u shaqaystaan waxaan shirkadda la yiraahdo kuma wanaagsana aniga iyo laba nin oo reer bidara yaada koor magaxiis la furanay Norway marka taran baan bixinay magaxidii markaanu furnay lacag adu $10,000 baan ku furnay marka laba nin oo asxaab oo ehelna oo isku sii dhow reer qabdaarada ma kala taqaanide reer hoosaan isku sii ahayn waxaan kaloon isku sii ahayn dadkan Ethiopia halgankeeda kula jiray yaanu iyadana isku sii ahayn ilaa dadku waa xisbi labadii nin laba bilood gudahood baan shaqadii isku fahmi weyn ilaan way kala tahay in ehel leeyahay in asxaab leeyahay in la wada shaqayn karo way kala tahay labadii nin waxay soo istaageen horta dhinac bay labadoodii bay ga mareen anigu inta badan mushkilad un baan la kulmaaba labadooda baa heshiiyey waxay ku dhahan inuu meesha adaa ka shaqayn anagu shaqooyin kale aan haysanaa wixii ka soo baxana saddex bay noo tahay aduna kaliya shaqay waan yaabay anigu wada doqon ma yihiin wada ogtiin ana idinka aqli badane oo isu gaban maynay si wax jiraan maxaad wadaa nimankii waday wax waan ka dhaadhicin kari waay laba nin oo nina reer Burca yahay oo Xuseen Cadami la yiraahdo inta reer magaalo oo cadan iyo dadkii u horeeyay dhoofay Carabaha ay soo joogi jiray nina uu reer qabri dahre yahay oo la yiraahdo hal magaciisi ma xasuustay reer qabri dahre uu yahay yaan gartii u dhiibanay oo ma reer qabri kala gaarahday anu aan gacan fududahay intaanan gacan qaadin te meelaha qurbahana qofka haduu dhowr jeer gacan qaado ma cirbad baa lagu dhuftaa gacanta dhan baa la banadi fiyus yeeladahay ila xubin walba fiyus gaar u leeyahay fiyus kan baa laga saari gacantii way iska seexama lug hadaad lugta qaado lugta la seexini hadda meesha qaada la seexini hadaad qaylo badan tahay qaybta qaylada baa laga saari sidaad kale qof baa tahay marka waxaan sirooniyo arrimaha kama bixi kartid bal nimankan u dhiibta baashi nimankii baa gartanadii galay Cabdirsaaq kada waa la dhigi jiray ninka kale haddaan xasuustay nimankii baa gartanadii galay nimankii gartii waxay ku soo gooyeen niman oo meeshan ma wada shaqaysan kartaan niman aad u kala fog baatihiin ama adigu meesha uga bax nimanka oo iyagu ku soo haraan ama iyagu kaaga baxaan nimankii wada hadal dib isugu noqonay waxay dhahayn inaad adigu nooga baxda mooyaane anaga meesha kama baxin meeshan ana soo helay nimankan waxa igu soo daray dhaqaalaha igu yaraa horta meesha ana soo helay anu lacagtiina aad ii raadiyo waliba lacagta aan markaa nimanka ku darsaday aan kugu daree ama bay haydo bangi baan ka amaahday waxa ka jira Mastercard baad iska haysan ama Visa card haddaad xaalad degdeg gasho bangiga lacag amaahdo waxba buuxbuuxinin darbiga ma lacag kala bixi laba bilood gudahood dad lacagti ku soo celiso iyadoo ina rento ama ribo ay safuulin yaad celin kartaa laba bilood laakiin hadday ka badato way isfulfuuli si badan cid kulleetay kugu soo dhigi ma jirto ama hadii keen cid ku dhigi ma jirto lacagti baa isfulfuul isma xidho meeshan kalarka lagu dhigay ma lacagta bankiga ku soo dhacdo baadho laga goosanaya waxaan banki ku dhicin xaga ma jiro meeshaas lagu dhex fadhiisan waliba intaas igama gooda inta iga goosa lama ogola iyaga ku qiyaasahay nimankii baan wada hadalay nimankii waxay dhaheen meeshii sadiiq oo in aad ka baxdo mooyaane iyo in aad kaliya shaqayso lacagtana aan qaybsan mooyaane wax kala shaqeynay male wariyaa ilaahay yaqaan anuguna de marka muddo dheer baan sharci la'aan ahay waan macaanaaday dulqaadkii baba aad igu yarba dadku waxay dhahaan aad baa u dulqaad yar tahay laakiin anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida dadka ugu dulqaadka badan ayaan ku jiraa waa tahay soo moogid midaas wax badan baad soo adkayso oo soo dulqaado marka nimankii waxaan idhi meeshii waan idinka baxayaa haddaba lacagtaydii ii soo celiyay waxay dhahaan lacagtii ma heli karo
toban kun baan bishii kuu siinaynaa haddana الدنيا هاي toban bankigii baa meeshii way gaadhaysaa way isku fuuli ها hormaad real dee waxaan dadnimo ma ahay ama lacagtii ii soo celiya ama aan tiin idin celiyo si sharaf lahayn mar kala baxno واي ma jirto labadii nin ee Soomaalida ahaa yaan ku celinaa arrinkii هاي waxay dhahan sadiiqo nimankan lacagtii ma heli karaan isku mana dhiman kartaan ducaanu afar faatixaan ku marayna أبو كبح adoo ka bax هاي saana yeel هاي sidii baan yeelay أدي بقى waan u tanaasulay واي nimankii dib bay isugu noqdeen dadnimadoodii iyo caqligoodii lacagtii degdeg bay ii siiyeen sidii lagu heshiiyey si ka fiican oo degdega oo 2 bilood gudahooda bay igu soo celiyeen واي waxaan ka wadaa isku dayo fara badan baan sameeyey maalin la weyto nin madax ka ah dawladda deegaanka Soomaalida baa ii yimid oo meeshii toobigeedii igu yimid هاي ninkaasi wuxuu igu yiri nin hal su'aal inaan ku weydiiyo baan kugu yimid واي oo maxay tahay su'aashu xilni waxa sheekadaadii ku jirtay waagi aad yarayd hooyada inaad isfahmi weydeen horta hooyada ma nooshahay waxa ku yiri hooyaday Allah u naxariiso way dhimatay niyo armi hooyada ku habartay buu yiri هاي hooyada iyadoo ku habartay oon raalli ka ahayn waxaan soo maray dhib ka badan armi dhimatay waxaan ku yiraahday wallahi ma habaarin هاي hooyada way ducaysay ciyaalka nagana anay bay igu jeclayd صح taata ma qaati u baahan tahay in xaafadan ku geenaya واي marka anigu inaan dhib badan soo maray oo ma haystaba صح waayo caqabadaha dunyadu way iska fara badan yihiin aad dhowr iyo 40 sano jira صح weligii laba asbuuc xanuun uma jiifin alxamdulillah alxamdulillah weligii caafimaadka muhiim xanuun uma jiifin waar cibaadadeedu haba yaraatee ilaahay weligii waa ku xidhnaa wada waay bini aadan baan nahay aad laakiin weligii ilaahay waan ku xidhnaa si fiican allahumma musta'aan ilaahay marweyn fiican buu siiyey ma sha Allah oo laba reer baan leeyahay dadku ma ogeey